soo dhawow وحيرة كبح إنك وحنا هذا هرت سو dhawow هذا هورنا وأشجعي نندل يرى وقت هاي وبحسوك عيات هاي ولقى قبيلة أفكار قبيل حتى مجيء إلى جماعة مقال النجو وأسكاك فتنا مالها سامكم مرنا واجدنا وحبوا من قرنو قلبي إلهي يا أب أو إنان قبيلة معناه سليم كنا هاي لكن وأسكاك فتنا أديك حتى سو هذا القات كذا كوع سلا ديقة عجا كوجلي مركا أجهرين تي وكهر الجلينيا عاونا وكاد غيا وبحبات هاي وبحبيا لوشبا كواسو كوكرا مركا نندل يراء أو صومال النمو هذا السليم أي أهيد إن مدح لوشبا أهيد لكن دعذي قدر إلهينا هذا عنان ملأ مركا وحوي وهذا عاوة لغير عاوة نغينا وحكلو هرتسودو أنت واعي shiina waan dhawahay horta shiina marna walaalkay tahay marna waalida igu aadan tahay Soomaali dhamaantood waa wiil iyo waalidkiis waaye mana kala maarmaan magaca Soomaali ayaa anagu wax ku noqon karnaa hal qabiil iskama celin karo hal wadan iskama celin karo laakiin wadan la yiraahdo Soomaaliya ayaa wuxuu iska dhicin karaa wadan kale ee Kenya ama Ethiopia ama wadamo kale ha ahaato marka magaca Soomaali ayaa anaga dhan naga wada waaweyn anigana habeenkaasna inaan barnaamijkaas aan galo waxa igu qasabtay qof waliba wuxuu ka dhashay beesheeda ina u habar wacdana waxa waaye habeenkaas dhiiqana ma dhihi karnaa laakiin nin walba waxa uu habar wacday habar wacashadina waxay noqotay in dhiiqa lugaha aan la galno dhibkan uu ka dhasho in dadkii ay kala qoqobmaan dadkii ay kala tagaan qaarna ay yiraahdaan ilaahay kuma samdaraaday qabyaalad buu bilaal ka sheekeenaya qaarna ay yiraahdaan uu ku saxaya beeshiisu difaacay Soomaali iyada malaayiin 18 milyan leedihiin waa beeshu way tahay laakiin way ka ballaaran tahay beeshu intaas way ka ballaaran tahay Soomaalimada laakiin wax walba ka weyn beeshu waa Soomaali annaguna Soomaaliya nahay beesha soo noo badataa waa Soomaali oo badataa marka waxa ay leenahay beesha Allah noo badiyo Allah inoo barakeeyo shiina soo dhawow nin balan qaadad ahayd inaad timaa xirtaan madal ugu nimid timxiiritaankii iyo makiinadiyaan kaaga fadhinaa soo dhawow teena timxiiritaanka u galin waa kan makiinadii waa diyaar hal arrin aan ku darayaa arrinta bilaal hadda koor waa u sheegay idinkana waa idin sheegaa bilaal waa nin caan dhalaya qof kastoo Soomaaliyeedna waa yaqaanaa waa nin dhalinyaro ah oo caan dhalaya muddo dheer baan aniga arki jiray laakiin maalin dhexdaas baa waxaan daawaday wareysi laga qaaday wareysiga wuxuu uga hadlayay TikTok live-ka iyo arrimo badan oo social media ku jira marka qaabka uu waramayay aan waxaan la yaabay yaraantiisa iyo caqliga ku jira iyo qaabku su'aasha ugu waramayay marka TikTok live-ka markii wax laga weydiiyay wuxuu yiri TikTok live-ka anigu uma badniyo ma jecli inaan aado wax kalena uguma badniyo dadkii baa screen recording la wada ordayo meeshuna waa hawl badan tahay hadal baa ka dhacaya wixii baa la duubayaa hadhowdii baa meelaha la keenaya hadalkiisii aan aad ugu bogay habeenkii dambe isagoo live ku jira annagu aan isfollow gareyn aqoon shakhsi isku lahayn waxaan u diray laba diyaaradood aan u malaynaa halkaas iska baranay lambarada kala qaadanay kabacdi waa u sheegay si bareefada waxa ku yiri maasha Allah aqliga Allah ku siyaadiyo nin dhalinyarada hadda inta garanaysa si gaar ah isagoo u sheegay idinkana si publica inuu ku sheegaya marka ninkaasi wixii uu ka cudur daaranayay oo uu ka cararayay oo uu ahayd hadii live-ka xamaasadaada ka ceesa hadalaa ka tigaya hadaladii sababteedii wuxuu keenay ilaahay qadaray aniga isagoo ila ciyaaraya oo ninkii dhiiqa luga u galiyay inay hadaladii ka dhacaan oo maanta ay meelaha yaaleen marka waxa idin sheegaya horta waxa kan waa game waa ciyaaratan dadkan meesha ciyaaraya waxa la yiri oo jiidis iyo qaalis waa isla gurkeyn muhiimadoodu waxa weeye meesha in wax laga helo ama magac qabiil lagu ciyaaro ama magac magaalaha lagu ciyaaro ama wax kale lagu ciyaaro arrinta qabiilka marka joogto nin sheekha hadda koor waxa la weydiiyay sheekhow findhicilka hilibka marka ilka ka cunto waxa kaaga hilibka yaro kaaga hara ma xalaal baa mise xaraam wuxuu sheegiisa xun qabyaalad sheegeeda xunba adoo Soomaalinimo haysta
adoo ku faani kara inaa qabiil sheegtaaba xun arrintaas aniga horta damage badan iima geysanayso oo waxaysan igu geysanayn ani qabiil waa iskaga hadli jiray waa iskaga kaftami jiray qof kastoo i yaqaana qalbigayga og waxaan galo iyo waxaan guda garanaya waa og yahay qabyaalad meeshaan ka joogo laakiin ninka dhalinyarada ah waxaa laga yaabaa inuusan xamili karin waxyaabo uu u bartay maaha anuu Soomaali jilib baanu aqaana hadda hadduu abgaal yahay micnaa jilibka ugu hooseeyaa sii geyn karaa hadda qoladiisa micnaa dadka nin kala bartaanahay saasaa iskaga sheekeeya saasaa iskaga kaftaa dusheedaan leeyahay marka ninka dhalinyarada ubaxa ah saas anaa dhiiqadaa geliyey ninka raggaana waxaa la rabaa marka uu khalad galo inuu khaladkiisa garowsado isla markaana uu garowshiye ka bixiyo khaladkaa waa garowsaday garowshiyaheediina halkaa u joogaa tinta waxaa u xiirayaa waxay tahay geemkii hore waa ka badiyey bilaal wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo liftin ku xiira oo aqbala anigu markii waxaa filayay inuu diidayo laakiin waa aqbalay bajaaj buu raacay halkuu ka dhacay meesha tagay tintu soo xiiray geemkii labaad baa la ciyaaray sabab kasta aan uga baxo duruuf kasta ha keento geemkii labaad marag waxaa ka haydeen 400 kun marayay ana 6 kun aan marayay taa micnaheedu waxa weeye hadduu geemku dhammaan lahaa oo xataa sidaa ku dhammaan lahaa badiska isagaa lahaa xujadii marka wuxuu igu xujeyn lahaa xujadii aan anigu ku xujeeyey tii baan maanta u qaadayaa saasaan tibaa isaga xiirayaa waxaa sidaa uga gol leeyahay qabyaaladii iyo qabiilka aan ku ciyaaraynay walaalkay daarood cay kama ahayn anna hawiyana caybka igama ahayn waxa naga ahayd war dadka u madadaaliya halkaas ka shida maxaa dabkii baxaya dab lagu qabsadaa dad qabyaalada ku macaashaan aragnay war caaw idina kaarka xoqda dhinaca dadku ku xoqan saasay naga ahayd laakiin firto dheer kula xushaa arrintii waa neefbaati waa ka shalaynay aniga layfaan ciyaaro xala igu xigtay habeenkii xalay oo xalayna waa iska kaftaa iska soo galay toddobada cisho waxaan u maqnaa qof walaalkaya oo ijeclaa oo faaniskayga ahaa oo wixii gadiyey aa iga xumaaday oo aan arkay isagoo wax soo qoraya mid maaha laba maaha sabaalkii maaha taasaa murugo igu haysay marka dadkii wejigaan soo siin waayey dadkii aa shalay hawiyaa wixii gadayey raxanweyn baa wixii gadaysay daarood baa wixii gadayey cid walbaa wixii gadayey dadkii markaa kala soocay oo reer hebel keliya rabaa aan idhi oo reerkayo ii kaalaya idhi dadkii Soomaaliya dhan baa ay daawanaysa reer ma daawanaya wejigaan la hor imanaya muxuu yahay de waxa weeye waa weji khariban weeye saasaa marka wejiga u qarsaday laakiin ummadda Soomaaliyeed dad isjecel iscafida isu cudur daaro waaye waxna aan isu qaban waxaan waa inaan lay qabanayn anigana de ninka odayga abaanahay laakiin ninka dhalinyarada dhiiqada anaa geliyey cudurdaarkeeda ka bixinayaa halka caawa u fadhiyaa mas'uuliyadeedan anaa le wixii halka habeenkii dhowto ka dhacay mas'uuliyadeeda anaa le ninka shaqo kuma lahayn dhiiqa qabiil laguma aqoon lagama maqal anaa labadayo lagu yaqaanay wixii xun xaawaale wixii halka ka dhacay shiinaale bilaal soo dhaw caawa waxaan ku ciyaarina waa Soomaalinimo aniga qofkii wax ii soo diraya oo qabiil rabo inuu wax igu soo diro آخري أدوك واحد لكن قفك وحيس صدرية أو يجو صدرية صومالي نمو أو يجو صدرية تاجرة ويهيو أو يجو صدرية معناه دي قف الدعوة أو تاجرة شركة كذا هدو ولاك هي وسود وينيا لكن قفك قبيل وحيجو صدرية هذا إدي شيء آخري أدونا هستا آخري أدونا هستا لكن قفك صومالي نمو تاجرة نمو ولا نمو معناه كالقعلو إيه صدرية walaalkayga ila dhashay haduu yahay tafadal bilaal la sidaas la mida dadkuna saas wax ku yahay qabiil cid ku faa'iido wallahi taariikhda lama soo sheegin dadka waxa ugu fool xun ugu taariikh xun cid qabyaalad lugaa la gashaa qofka qabyaalada wada meel ma gaaro qabyaaladna qarnigii koolaatiradan ku jirnaa dhamankaasay inoo yeeshay qurbahaasayna keentay halkaasayna dhigtay tiktok nin kale waa nin shiinaysa dawlad buu leeyahay dawlad baa diyaarsa haddaan aniga marka haddaan lahaan lahaa haddaan dawlad ahaan lahaa oo wax baran lahaa Oxford iyo Harvard la dhigi lahaa TikTok waa furi lahaa laakiin hadda aqoonteedii ma lihi ninkaasaa marti u ahay qabiila halka ay dhigay isaga ay soo qaxiyay xaasha wujidkii ku noqon mayo marka sidaas darteed hala iga raali ahaado qabiilna anoo dib u ciyaaraya hadda aragtaan walaalayaal waa shay qabsada bilaal baan ku soo wareejiyay SJ thank you waxiiraya shiine waxaan rabaa horta inaan dib u laabto oo sababihii iyo qaabkii tinta u xiiray inaan dadka u sheego dad badan way igu taageereen oo waxay ugu yiraahdeen nin ragaad ahayd raganimaadna tinta ku xirtay waana sababta hadda raganimada aad la soo fariisatay oo aad rabtay inaad tin aad ku xirto game mar hore soo dhamaaday taasna waa kaaga mahad celinayaa
nin ragaa tahay nin go'aan lahaa tahay waxaan ku leeyahay nin odaya oo laandheera tahay sababta tinta aan ku xiro waxay ahayd aniga option kale iima furayn sababtoo ah shiine haddaan ku madax adeego waxaan noqon lahaa nin laga bediyey oo kadibna geemka lagu jaray shiine markaas waxaa u furneed inuu geemka iga gooyo kadibna meeshaas aniga lagaga badiyo lagagana tago halkaasna waxay noqonaysa inuu shiine uu badiyey anigiina aan qaraaray kadibna saasna aan guuldarada ku qaatay intaa guuldaro qaadan lahaa waxaan go'aansaday inaad tinti xiiro sidoo kale shiinena wuxuu go'aansaday intii eed ee ku socon lahayd inuu tinti xiiro marka shiine maxaa see dareemaysaa saa dareemaysay markii baasha ku dul saarneed waxa maahay horta ani timeyga dhib badan male horta aniga timeyga anu baa iska jooga quruxdaan ugu yeeray xataa haddee tana aysan soo noqonayn waa xiiraa shida male xiniinna la jeexi maayo raganimo waa ayaroo lugaa dhulka lagu haye intaa tinta la xiirin waxaan ku weydiinayaa imise geeman cayaarayna markii tinta aad xiirto 5 game waa xilli dambe 5 game cayaarayna okay 5 game cayaaraynaa halkan waxaa joogto ogow SJ yaa joogto ogow ya roberto cali soo ma aragtaa ha maasha allah SJ maasha allah gabar mar waa i garaacdaa mar waxba ii gadaa haddii adiga kula joogto allah ku shafo SJ astaan waxa u tahay taasi waxaa ka dareemaysaa astaantii midaynta inay bilaabatay eedaday weeye marka astaan waxa u tahay qabyaaladii laga tegey maasha allah halkaa ka aad iyo astaantii midaynta bilaabatay shiina soo dhowow waa dhow annagu waxaan leenahay dhaqan haddaan nahay reer koonfur makiinadda inay iga dimisaan codsan lahaa tinta waad xiiri doontaa laakiin xilligeeda hala gaaro annaga reer koonfur haddaan nahay waxaan leenahay dhaqankaas oo ah in markii laba qofood ay wax kala tabanayaan hal meel ay soo wada fadhiistaan in la sameeyo wax la yidhaahdo faatixo صح reer koonfurkeen ama reer muqdisho waxaan u badannahay naf dhimatay ayaan waxaan ugu sabarnaa 4 faatixo tintaadana caawa ma xiiri doono makiinadaas qaad meeshii aad ka keentay geey cafisaa tahay nin ragaa tahay waxaan ku leeyahay walaalkeeyaa tahay tintayda waa xiiray raga bis shiine hoynaya Shine. Shine. Shine bis naga dhe nin ragaa tahay isaad kee Shine soomaalinimada ha nuurto soomaalinimada alle nagu wada dil dhammaanteen soomaalinimada ha nuurto soomaalinimada ha waarto soomaalinimada ha waarto soomaalinimada ha waarto soomaaliya ha noolaato soo wada qora 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 dhammaantiin geesiyaalaa tihiin soomaaliya ha noolaato soo wada qora soomaaliya ha noolaato soo wada qora soomaaliya ha noolaato soo wada qora soo wada qora soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soo wada qora caawa meeshaas waxaan ku aasnay arrinkii qabyaaladda ee baryahan soo taagnaa Shiine ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا قد أنا نبدأ شيء نرجع تاي نرجع تاي وسوكا تاي رالي هذا ما شاء الله ما شاء الله رالي ما أنت على تنتي وي قروح بدن تاي فإذا أنا يمسو كردين يسينا عادي تنتي هذا فالح ما فهمت ما أظن ما قروح لا جبت أنا حق قروح من إني سوق إذا inay kuu soo bixi weydaan ka baqayna marka shiina walaalkay ii noolow gamekeena caadiga ah ee soomaalinimada bilaabeynaa waxaana rabnaa
in gamekan uu tusaale u noqdo dadka ku cayaari doono qabyaaladda in uu tusaale u noqdo laguna dhiirigeliyo inuu gamekan yahay game Soomaaliyeed ayaguna ay nooga daydaan si ay nooga daydaan in geemam kale oo cayaara oo Soomaalinimada si u cayaaraan gamekan ha laga tuso aado masjid shiina soo dhawow afisaan iga taa walaalkay الله كشفه الله كشفه أبو الله كشفه وكاسايا أنجي وذ عياريني أو تنت إسكحيرني أو وحيل أو عند حمرين ولا لا وحبا يسوها السن هبينكي حتى ولا هاللي مركب بليس قف كلو الصوماليات أو لقيا أنا قدرت إن السوق معجين أكل على الحماضي وحلينا هاي عقل الحمى إن كنا قلنا ساعة مرة ده أنجي ولا هاي صاحب هاي ساعة سور جوجنو إذن كان ساعة سلة من علينا كربا وحكنا وجيم adduunka waa la ciyaaraa waa la kala badiyaa dadku faanisay kala leeyihiin dhibaato male marka haddana Soomaalinimaan ku ciyaarayna qabiil ku ciyaarayno waa sheegay qofkii habeenka caaw kaliya maahay inta TikTok si ciyaarayo hadda si noolahay qofkii qabiil wax igu soo dira dartii qabiil kaliya akhri adduun haystaa laakiin qofka macnaa taageero uu yahayo walaaltinimo saaxiibtinimo asifan ahaan wax igu soo diraya walaalkii hadduu yahay iska dhaaf cid kale وكاوا أقولها مركوا أود عيارنا إذن كانوا واحد إنك عصنايا قبيلك بونبونتي إذن كان مسؤولية ده روح كل هذه أنا وحيابي نوك اللي في إن قبيل كعيار نروح عاركيني وحكيني دتكيو قبيل وحكم بحنية مركا أذو قبيل وحكم بحسد معناه الروح قبيلة دي أداء مال قلنية لكن مركا صومال نما وحكم بحسد أو أقفك قبيل كعياري أتراضو كاس وحصين مايو معناه الصومال نما دي بعد يقلنسا dadkuna Soomaalinimada wada aadayaan laakiin hadaa qabiil dhiiri geliso dadku qabiil wada aadayaan oo atraal qabiil baa ku bixinaya waa wada ciyaarayna inoo soo bilo soo dalbo waxaan ka rabaa ciyaartu inteena bilaaban dadkana daawanay macale adiga aan faataxada akhrino Soomaaliya bogooda burcad Ilaahay soo iskugu mariyo bismillaah amiin ilaahu bogay burcad soo mariyo Soomaaliya oo dhan faatax a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaah إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا يا أيها الصومالي